بسم الله الرحمن الرحيم دهورنimo wanaagsan akhbaaraadka radio kulmiye maanta idin hayana waxa ugu waaweyn al-shabaab oo ku dhawaad 100 ruux oo shacab ah ku dilay dagaal ka dhacay duleedka degmada Bacaadweyn ee gobolka Mudug gaari shabaab ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa oo xubno ka tirsan kooxdaasi kula qarxay deegaan 25 kiiloomitir u jira magaalada Garbaharey taliyii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo sheegay in bambooyin iyo bastoolada la sii diyaariyay ay ku dagaalameen maxaabiistii xabsiga dhexe Simaa ra'iisul wasaaraha dalka oo kulan looga hadlayay dardargelinta baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe la qaatay guddi loo magacaabay dhacdadaas ciidamada ammaanka magaalada Dhuusamareeb oo gacanta ku dhigay jaad qaab qarsoodi ah looga soo qaadi rabay garoonka diyaaradaha magaaladaas hirshabeelle oo sheegtay in fatahaadda webiga shabeelle uu burburiyay dhulbeereed fara badan oo gaaraya 5,000 oo hektar isgaarsiinta magaalada Baydhabo oo maanta mar kale hawada ka maqan iyo hogaamiyaha waddanka Shiinaha oo ku hanjabay in uu ilaalin doono xeerarkii u gaarka ahaa ee maamulka Taiwan mar kale duhur wanaagsan waa Arbaco 12 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2020 Axmed Saciid Axmed ayaa warkeen duhur soo saaray Cumar Xabeeb Nuur iyo anigoo ah Farxii Xuseen ayaana soo jeedinaya markan ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan al-shabaab ayaa ku dhawaad 10 ruux oo shacab ah waxa ay ku dileen dagaal ka dhacay duleedka degmada Bacaadweyn oo ka tirsan gobolka Mudug wariyaha nooga soo warramo gobolkaasi Liibaan Cajiib Xaaji ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray deegaanka Shabeelle oo qiyaastii 25 kiiloomitir dhinaca bari kaga beegan degmada Bacaadweyn ee koonfurta gobolka Mudug ayaa maanta waxa ku dagaalamay dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo ka yimid dhinaca degmada Xardheer ee gobolka Mudug dagaalka ayaa la sheegayaa inuu yimid kadib markii al-shabaab deegaankaasi ay ku dileen mid ka mid ah macallimiinta dugsiyada Quraanka ee ku nool halkaasi taasi oo sababtay in shacabka ay sabaabulaan isla markaana ay rasaas ay kala hortagaan shabaabkii weerar ku soo qaaday deegaankooda dagaalku ahaa mid saacado badan socday ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo soo gaaray labada dhinac inta la xaqiijiyay 7 qof oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku geeriyootay halka ay ku dhaawacmeen 3 kale oo markii dambe dhaawacooda loo soo qaaday dhinaca magaalada Gaalkacyo iyadoona sidoo kale shabaabkii weerar ku soo qaaday deegaankaasi uu gaaray khasaaro balse ilaa hadda lama ogo maadaama markii ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay ku biireen dagaalkaasi ay ka carareen deegaankaasi kuwaas oo markii dambe ku laabtay wadadii ay ku yimaadeen gudoomiyaha degmada Bacaadweyn ee koonfurta gobolka Mudug Axmed Daahir oo isagoo ku sugan deegaanka Shabeelle oo la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa ka waramay xaaladda deegaankaasi iyo khasaaraha soo gaaray dadka shacabka khasaaro uu yimaada inta badan hadii meesha dagaal ka dhaco khasaaro uu yimaada meesha dagaal baa ka dhacay dagaalkaas ayagana waxba ku gaaray dadkii shacabka ana waxba gaarsiiyeen marka khasaaro waa ka dhacay meesha ilaa 7 qof ku dhimatay marka way dadka hadana waan ognahay oo ay ku jiraan dad barmageylahay oo dad ilmo yar iyo waayeel iyo macallin quraan ay ka mid yihiin marka dadka noocaas ah meesha ay ku jiraan magaalada u dhashay waxay ahaayeen dadna guryaha jiifeen dadna baadiyaha ka yimaadeen qof walba iyadoo waxba ogeyn oo waagi markuu bari soo toostay ama yani weysiisanaysay meesha ku jireen adoo waxa weey dagaal ka dhacay dagaalkaasna ilaahay alxamdulillah markii dambe waa laga guuleystay ayagiina maxamed axmed cali oo ka mid ah odayaasha deegaankaasi ayaa dhinaciisa sheegay inay iska difaacayaan weerar kasta oo kaga yimaada al-shabaab kullay diinta islaamku waxay dhigaysaa horta qofku naftiisa iyo maalkiisa inuu difaacdo ma garan ummadaha weeraraan ka mid maahin ama xoolaha dhaca ama soo rogtaan ka mid maahin dadka weerarkaadana ka mid maahin laakiin waxaa go-aan naga ah nafteena iyo maalkeena iyo xoolaheena iyo xeelaheena inaan difaacno inkasta uu yahay wixii noogu yimaadaan nafteena xaaladda guud ee deegaanka Shabeelle ayaa hadda degan waxaana deegaankaasi ku wada sugan ciidamada deegaanka iyo ciidamadii ka socday 12aad ee saldhigga ku lahaa duleedka degmada Bacaadweyn ee koonfurta gobolka Mudug kuwaas oo deegaanka Shabeelle u gaaray siday u caawin lahaayeen dadka deegaanka gaari shabaab ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa ayaa xubno kooxdaas ka tirsan waxa uu kula qarxay deegaan 25 kiiloomitir u jira magaalada Garbaharey ee gobolka Gado farxaan maxamed xuseen ayaa dhameystiray warkan
wararka idaacadda kulmi ay ka helayso deegaanka Mikarebi oo hoostaga degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo qiyaastiina u jira 25 kilomitir ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay qarax ka dhashay gaari walxaha qarxa ay ka buuxiyeen kooxda Al-Shabaab isla markaana uu dhimasho dhaawac ka soo gaaray inkastoo aan warar rasmi ah laga hayn khasaaraha soo gaaray kooxda Al-Shabaab gaashaale Maxamed Cabdi Jaamac taliye ku-xigeenka saldhigga magaalada Garbaharey oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen isagoona sheegay in qaraxa xooggiisa laga maqlay magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in deegaanka uu ka dhacay qaraxa ay marba isu bedelayeen gacan ku hayntiisa ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab maykaan reebay meesha la dhaho oo soonaha Garbaharey ah waxa ka dhacay qarax weyn qaraxaas marka xogtiisii markaan raadinay waxaa naloo sheegay dadka shacabka oo kaaga dhaw ay noo sheegeen baabuur nimanka shabaabka ah oo xanlaayaasha ah ay wateen inuu meeshaas uu ku qarxay ayagana khasaare badan ay ka soo gaartay khasaarada dhabta ah oo soo gaartay anagu ma xaqiijin kara laakiin qaraxa inuu dhacay meesha qarax weyn uu ka dhacay baabuur ayagu uu lahaayeenna uu ka dhacay dee dabcan markaa khasaare badan waa jirtaa laakiin xaqiiqda dhabta anagu hadda weli ma hayno waa soo xaqiijin doonaa gaarigii qarax baa ku xirnaa sidaasa hadda dadka shacabka saasay caddaynayaan ilaa wuxuu u jiraa 25 meelahaas noo jiraa ilaa 25 buu noo jiraa meelahaas oo nimankaan waa warweegaan saldhig ma laho toos oo loogu soo aado meesha markii noogula sheego intagna way ka cararhayaan waana soo wareegnaa niman marka ma aho saldhig rasmi ah oo degan oo hadda loogu soo hagaagayo nimanku ma laho marka waa isdaba wareegnaa maalina annaga imaano markaa kasoo noqonana ayagaa tago sidaas weeyo ma aho wax marka intaad ku soo duusho meesha aad kula diriri karto ma aho waa guurguurahayaan hadba meel bay degahayaan waa ka guurahayaan had marka lagu sheego soo aada waa ka tegahayaan oo wax sidaasaa weeyo oo dadkay ku dhex nool yihiin waa dadkay ku dhex milan yihiin dadka shacabkay ku dhex milan yihiin ayagaasay xogta iyo baalkiina la wadaagaan oo isku akeysiyaan oo ka dhex dagaalamaan dhowr mar ayaa sidan oo kale Al-Shabaab qaraxyo ay diyaariyeen oo ay doonayeen inay ku weeraraan meelaha dawladda iyo dadka shacabka uu ku qarxay waxayna qaraxyadaasi ay iskugu jiraan kuwa gawaarida iyo miinooyinka dhulka la geliyo iyadoona uu kooxda ka soo gaaro qaraxyadaasi dhimasho dhaawac taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa sheegay in bambooyin ay bastoolado loo sii diyaariyay ay ku dagaalameen qaar ka mid ah maxaabiistii maalintii Isniintii dagaalka ka dhex samaysay xabsiga dhexe Soomaaliya taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare oo ka hadlayay weerarkii maxaabiis Al-Shabaab ah ay ka fuliyeen gudaha xarunta xabsiga dhexe ee Muqdisho ayaa sheegay in xogta uu helo ay sheegayso in maxaabiistu ay ku dagaalameen bistoolado iyo bambooyin maalmo ka hor lagu sii diyaariyay halka ay ku xirnaayeen sidoo kale Generaal Tuuryare ayaa tibaaxay in Al-Shabaab kaliya aysan ku dagaalamin hub ay ka disheen ciidamada ku sugnaa gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho balse ay ku dagaalameen hub halkaasi lagu sii diyaariyay xogahan helayo si gaar ah helayo waxa weeye in bistoolado iyo bambooyin meesha lala galay oo maalmo ka hor ku jiray askarta waliba la dilay askari koowa bistoolada lagu dilay qora askari laga qaato laguma dilin kadib aan qoriyay laga dishay ay ku sii badsadeen marka intaas kaliya ma ahan marka dadka dhintay tiradiisa la fiirsho marka dagaalku saacadaha uu socdo la fiirsho marka xogaha la helayo la fiirsho meesha ilaa 8 bombo iyo 4 bistoolad in la geliyay oo dadkii Al-Shabaabka ayo qaarna gudoomiyaal looga dhigay maxaabiista iyo ku-xigeenno looga dhigay qaarna inta la sahashaday banaanka u soo baxeen oo xerada wareegayeen oo dadka u adeega la yiri waxa soo dhan ayaa iyo ciidamadan cusub oo meesha la keenay iyo habacsanaanta meesha ka jirta iyo dadka meesha maamuloon fahansaneen dadka ay maamulaan oo xabsiga ku jira qatartooda waxa soo dhan marka la isku daro waxaan isleeyahay suuragal ma aha in waana sababtu waa taas waxa dhacana suuragal ma aha in laba qor kaliya lagu sameeyay wax ka badan baa jira geesta kale taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ay ku jiraan xubno shabaab ah oo qatar ah isagoo sheegay in aysan ku filnayn inay ilaaliyaan ciidamada asluubta Soomaaliyeed kuwaas oo loo tababaray inay ilaaliyaan maxaabiista ku eedeysan dambiyada fudud meeshaas marka la soo koobo waxaa ka jira inaan la isgaladsiin layac baa ka jira wax anaga intii aan xafiiska joognay anaga wax badan oo aan
shaqo badan aan dadkii meesha jooga kala qaban jirnay meeshaasna ciidan asluubahee loo tababaray dad mukhaadaraad iyo waxaas camal loo soo xiray ilaalintooda kaliya kuma filna hay-adaha kaloo amniga inay meesha xabsiga ku yeeshaan dad uga soo warrama oo waardiyaha qayb ka haya oo dadka weliba shabaabka ahee xabsiyada waaweyn ku xukuman ee halista si gaara dad u ilaaliso dadkii soo qabtay ewel ee xogtooda keenay ee halistooda og ee hay-adaha amniga kamid a in meeshaas qayb kamida loo soo bedelo waayo ayagaba asluubha laga dhigay laakiin u malayn maayo in ciidamada asluubta kaliya inay oo loo tababaray dad iska caadi oo maxaabiis caadi iyo dad siyaasadeed iyo waardiyintooda inay dad dilayaal ahoo al-shabaab ahoo inay ayagu fahamkaa leeyihiin kuna aadaan u malayn maayo hadalka taliyii hore ee nabad sugidda Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor maxaabiis al-shabaab ay ka dhex dagaalameen gudaha xarunta xabsiga dhexe ee Muqdisho kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa kulan looga hadlay dardargelinta baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe waxa uu la qaatay guddigii loo magacaabay dhacdadaas siyahayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa kulan uu la yeeshay guddigii uu u magacaabay baarista dhacdadii ka dhacday Isniintii aynu ka soo gudubnay xabsiga dhexe ee Muqdisho ee sababtay dhimashada maxaabiis iyo askar ka tirsaneed ciidanka asluubta Soomaaliyeed isagoona si gaar ahaaneed uga codsaday guddigan in ay keenaan natiijo ay ku wada qanci karaan guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxa uu si gaar ahaaneed u faray in natiijooyinka lagu saleeyo xaqiiqda jirta oo aan marnaba la dafirin siyahayaha wasiirka cadaaladda Xasan Xuseen Xaaji ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyay shirkaasi iyo qodobada looga hadlay isagoo si gaar ahaaneed u sheegay in guddi hoosaad farsamo oo ka shaqayn doona dardargelinta howlahan la magacaabay maanta waxaa kulan yeeshay guddigii ra'iisul wasaar ku-xigeenka ahna siyahayaha xilka ra'iisul wasaaraha shir gudoominayay guddiga waxaa ka soo qayb galay guddiga dhan waxaa looga hadlay sidii loo samayn lahaa baaritaan dhab ah dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe waxaan kala qaadanay jadwalkii baaritaankii iyo habkii loo samayn lahaa waxaan magacaabnay guddi farsamo oo arrintan ka shaqayn doono waxaan rajaynaynaa in guddigan shaqo ballaaran iyo baaritaan ballaaran ka qabto shaqadii iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga soo gudbiyo guddigan waxyaabihii ka ratibmi lahaa faldambiyeed ahaata iyo dabacsanaan ahaataba wixii meesha ka dhacay in guddigan soo diyaariyaan waxaan lagu ballamay 10 bere oo ku qorneed dekreetadii ra'iisul wasaaraha gudahooda in baaritaan hufan guddiga keenaan guddigana shaqadiis waa bilowday dagaalkii ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxa uu ahaa mid ilaa iminka ay su'aalo badan iska weydiinayaan guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed iyadoona inta badan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay soo jeediyeen in dhacdadaas aysan noqon dhacdooyin horey uga dhacay dalka oo guddiyo loo saaray wax natiijo ahna aysan ka soo bixin dowladda Shiinaha ayaa waxa ay cadaadiska ku sii kordhinaysaa maamulka Taiwan waxaana durba Shiinaha uu bilaabay in dhaqdhaqaaq militari uu ka sameeyo xuduudda u dhaxaysa maamulkaas iyo Shiinaha intiisa kale xukuumadda Shiinaha ayaa aad uga carootay booqasho dhawaan uu maamulkaasi ku tagay xogayaha dhinaca caafimaadka ee dowladda Mareykanka Mr. Alexei Beijing ayaa wax ka badan 20 mar fargelin waxa ay ku sameysay biyaha iyo hawada maamulka Taiwan sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda maamulkaasi Mr. Joseph wasiirka ayaa hadalkiisa waxa uu intaasi ku daray in dowladda Shiinaha ay ku xadgudbayso xuquuqda Taiwan dhinaca kale hogaamiyaha wadanka Shiinaha Xi Jinping ayaa ku hanjabay in uu ilaalin doono xeerarkii u gaarka ahaa ee maamulkaasi Taiwan loo sameeyay